السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايد سلام دمان أصحابتي قالقة. أصحابتي قالقة سيتهين أما في عنتهين أما نبات قبتين إلهي إذا كيس وايدي رجينا أما الكسودة دونك كجوجتان خير إيه فرحات لسود هذا وما موان يمرك لا يا channel كيني دمرك الصوماليات channel كان وحوي channelkii dumarka Soomaaliyeed waaye laakiin meeshaan fadhino waa kii maamuwaane iyo saaxiibada qaaliga meelo kale aan haysanaa marka soo dhawaadaya see la yeela meesha kale ma joogi markaan taga laakiin waa aqoonsanay meesha loogu talagalay iyo wad sheekada waaye iyo wad sheekada haye iyo soo dhawaada noo soo dhawaada kheyr iyo farxad soo dhawaada adeegii channelka dumarka Soomaaliyeed waa noo bilowmay allaha barakeeyo soo dhawaada dad aad u fara badan waxaan ka dhageystaa مسجو قد هادو فرا بدن ay soo galaan masajada intaan ka gaaraan dhageystaa xilli badanaan fariistaa marka qaarkood waa wax talo loo rabo talawaati ilaahay wax nafaqa loo rabo maaha inta badan nafaqa ay iga barateen dabiibi dadaal sax marka inta tala la rabaa isla sheekaysiya la rabaa cabasha jirto amuurta kheyr Allah ka dhigo Allah nooga dhigo dhamaan walaalaha qaar waxay leeyihiin habar yare nolosha way ugu adagta kulayl aan dareemayaa nolosha way iga adkaatay saan ma ahaan jirin noloshayda way macaaneed reerku waxay ahaayeen baari hadda waxaan dareemayaa kulayl zaa'ida ilmihiyo dhaga adag odagiyo qaylinayo anigiyo daalan waa iga daba imaatay maxaan sameeyaa marka talawaati ilaahay adinkan waa ku darsan kartiin talada insha Allah kaligii leeyaan boobin waa duco moogta marka qof walaala ka duceysatid waa wax fiican marka ka duceysta walaalaha dumarka Soomaaliyeed ee noo saaxiibka ah ee channeladeena kale iyo group-yadii meel walba ka soo baxay inta fariisan doono fadhiyo soo dhaweeya ila soo dhaweeya taladana wax ka qaata adinkan insha Allah aniga intay ila tahay leen ka hadli karaa adigana intay kula tahay waa muhiim so hadda isxilqaami kartid waa welcome of course hadalkana waa lagu maqlaa arrinka sidoo kalena qoraalkana waa lagu fahmaa wax marka waxaa idinka codsanayaa annaga inta badan af Soomaaliga waxaa la yiraahdaa qayb qaraarna waa leeyahay qayb macaanna waa leeyahay waa sida mirgiga hadba dhinaca u jeedid oo ku raacaya marka waxaa idinka codsanayaa inaad qaybta macaan isticmaashiin oo anaga dhan aan isticmaalno afkeena waxsan Allah ka keenay sababtoo ah aamin ya rabbi dadka nala hadlaayo ama aniga ila hadlaayo waa dad dhiirigelin rabo dad buuqi qayla soo doonta maaha dad dacdacsi soo doonta maaha dad wax canaano in la dhaho rabo ma waa dad si baarinimo rabo ama si tartiib oo macaan inay wax ku xaliyaan marka walaashan waxay leedahay odagaygu wuu kululaaday aniga xanuunaan qaaday xanuunkayga waxaa la yiraahdaa tiri walwal xanuun walwal la yiraahdo lagu soo tuuray odagii dabeecadii ka xumaatay maamoy waxaan ka baqayaa tiri inuu booliis albaabka ii soo garaaco oo dagaal soo galo ama wax la yeelo ama uu wax yeelo waxay tiri wadaadkayga nin weyn maaha aniguna gabar weyn maahi ilmana ilaahay waana siiyey ilmihii kuleylay tiri kuleyl orod guriga way rogeen odaga xanaaq waxay tiri waxaan aad uga sii walwalaa carada oo guriga ku haayo hadduu banaanka qof is helaan u dagaal ii galo maxay ii talaa maamoon adaa kuu sheegaya tiri maadaama programkan aad soo wadido ila tali walaala talawaatii ilaahay ninkan kuleylka badan leh oo markuu sii kululaado anigana aan baariyad sii noqona oon dhulka isku dhiga oon hadalka u macaaneyna maxaan yeelaa arrinka kale waxaan ka baqaaya tiri baabuurka isbiidka uu ku waday tiri inuu dhibaato igu galo maalin kasta waxaan bixiyaa tiri ama aan bixinaa lacag ganaaxa mana iga go'day tiri biil ahaan igama go'do ganaaxa gurigeena waxaa isiraaday tiri ninkaanay malaha iska barteen lacag ka dul sameeyaan wuxuu u soo dhacay tiri wiig walba 2 3 4 u galaa shaqadiisa waa taksi tiri marmar buuqow galaay tiri abkaaba laga xirtaa haddana doodoo furaa waa u soo furaan baarkin qaladoo iska dhiganaa baabuurka dhowr mar waa laga jiite
waxa lagu dhajiyey oo ganaaxa waa lagu dhajiyey ganaax hadduu doono wuu jarjaraa wuu tuuraa hadhow guriguu kusoo dhaca weligaaba tuur warqadda yaroo meesha la saaray qabababababa marmar waxaa isiraa tiri kan yurub looguma talagelin inuu ku noolaado waa isweydiiyaa baarinimadii xilligii shukaansigeena uu lahaa ama waagii aan isku cusbayn wanaaggii ninkan ka muuqday maxaa kaga dhacay habaryaree wanaagga iyo baarinimada iyo nin reerkiisa u jajaban amar ma kaga dhacaa aniga kan amara iga haystee wadaad baariye oo maaragtay maasha allah ii dhaga nugul oo ii hadal macaan oo ii xoog furanaan haystay tiri anigii asiga waa isku qabsan jirna anaa qabanaa hawsha guriga iyo ta bannaankaba wax walba waxay tiri waa i horboodi jire odagii wax iiga dhacay maaqaanay tiri kuleyl anigoo hadlahay tiri maba aamusi karo markaan hadlo way igu garab hadlahay tiri maamuwaano ma dhamaysa kari hadalkaygii tiri marka waxay noqonaya buuq inuu furo dabadeedna aan carabkayga gadaal u ceshto oo aan aamuso markuu bogtane go-aanka wuxuu ku dhammaynaa siduu asiga rabo ilmihii waxay tiri ma anigii asigeenna arkeen ma odaga soo u dhaqmaahay arkeen ma aniga gacan kuga badkaahay arkeen ilmihii waxay tiri waa isdaba ordaan qofkii meel fariisa qof kale laga u gelinay musqulahay isku qabsanaan jaranjartay ku yaacaan sariiray ku boodaan ilmihii waxay tiri waxa aan ku sameeyo ma aqaan telefoonay haystaan iyo iPad ka aruuri TV-ga ka xakamee gurigu waa guri yar bannaan looma baxo lockdown waa lasoo maray waxay tiri hadda lockdownkii markaan ka soo baxnay timihii aabay hoobanooyabo aniga dhan waa daalanahay ilmuhoo soo jeeda habeenkii hurdo i qabataa maskaxiyanaan daalay waagay yaryaraayeen ay beebiyaalsii ahaayeen jirkaanba ka daalana maantoo dhuuqubeeyo xafaayad ka bedel ciidan male ehel male ka daba orod ka daba howshiya keliya aan ku noqday in adeerkiina wuxuu yidhi bariiskan soo dhicinaa maqnaashadiisaa badan guriga markuu yimaadana gabagabadiisaa badan waagii uu ii fiicnaay maba dareemi jirnay tiri maqnaashadiisa hadda hadduu joogana waa kadeed waa ka aamus ka daba shalaambe hadduu maqan yahayna howsha keligaa dhexbood haddii talaan rabaa tiri talawaatii ilaahay hallee soo sheekeeyo janalkan cusubna waa fadhiyaa markay waa dhageysta sheekadeedii adinkana waxaad ku caawi kartaan ku caawiya odaga yaan lagu dirin odaga waa oday u bartay in maaragtay yaa haye loo dhaho si ii muuqata aniga soomaaliya hore waxay u tiri wax loo barto baas waa inaad ka daba shalaambisa xaaji muxuu hadduu la qabsaday hadalkiisaa hay jira heeseen yeelaynaa marka oodasay u kala horeeyana loo kala qaadaa baan dhihi jira aniga odaga iyo waxaa ila daran ilmo yaryara waaye inay ku maqlaan sidii waalidkii ku ciseeyaan ama labadiinaba idi ciseeyaan buuqa lagaa yareeyo orodka lagaa yareeyo waayo annaga waalid haddaana cunuga markuu cararo inuu jajaba ahaanba u malaynaaba waayo wuu jabi karaa waalidkaa hadduu yac kaa dhihin hadda waa jaranjartaasay ka fakadaana ku filan marka odaga dhib male saa sheegtana shaqadiisaaba maqnaasho ah markuu guriga joogane shalaambiskaa bartay wad ilaa iyo maalintuu iska garana anigu odaga howl badan geli kuma dheh ninkastay xanuun tahay wadaadkaadu kugu dhaga adag laakiin bal ilmaha fowkaska saar walaalihiina waa kuwaana talada waa nagu soo darsan karaan luuqana waan kuu dhigay habaryara qur-aanka ilaahay reerka ku aqri sadaqa ula bax ilmahana adaa waalida adiga waalid inkastay jiraan ilmo waalidiinta isku daya inay xukumaan qayliya buuq iyo isku kicinaayo ma aragtay pressure warkooda ka baxa la sheekaysa waxaa tira hooyo labadeena yaa waalide hadduu ku dhaho anaa waalide sheekada war kalay leedahay hadduu ku dhaho adiga maqal he midda kale aan wareysano ilmahoo yaryaroon maanta hadda 20 sano cagacageeninoo dhowr iyo 10 jir aan noqonin haddayna gabagabeeyaan ilmahoo rooroon maxaa loo malaynaa ka daro dibidhal waa sax soo gabar walbo hadda aragtay ilmaha cararkooda dagaalkooda buuqooda guriga jijibintiisa ayaga isqa qabsigooda gabadhii haysatay hal cunug ka badan fadlan biri waxa soo socda fiiri waxa la yiri waxa taagan qofkaan arkin waxa soo socda ma arko
marka odaga hortiisana ilmaha ha ku wada hadlina, ilmaha hortooda odaga ha ku hadlin, ayagana ha la sheekaysanin oo amar iyo wax iyo ha ku soo rogin odagoo joogo. waayo sometimes waxaa dhacdo aabbayaasha qaar ilmaha inay kaa celiyaan, amba waa kula arkay ilmaha waa lagaa celina, halgul iska dhaaf waxaas iska daa, waa lagaa fujinaa. hadhow waxay noqonaya inuu ilmihii aabbihii jeclaadaan, inay aabbihii dhahaan odaga agtiisaa nafis ku helnaa, waxaan doona sameynaa, iska qayqaylinaa, odaga xoogaa free ku agnahay. adigana waxaa rabtaa qubeyskoodii, hurdadoodii, qur-aankoodii, iskuulkoodii, shaqada gurigii, wax walba inay kula qabtaan, kala dambeeyaan, oo culayska iyo maaragtay kalifka lagu dareemo ilmaha hyperka qalqaaliga aadan dareemin. ammaankoodina meesha waa ku jiraa, macalimadna waa tahay ogow, ilmaha waxaad bartay berri noqonayaan. marka dhib ma leh, tartiib micnihii waa fahantay, xanuunkan buuqaan iyo qayladan waa ku karay, xoogaa waa soo weynaatay, waayi aragsatay. midda kale shalay iyo nabadii jirtana waa soo xasuusanaysaa. marka ilaahay bari inuu ilaahay reerka kuu qaboojiyo, iljin iyo ilinsi waa iska jirtaa, allahna mootiyo. wadaadkane waxaa waaye tartiibaa ugu sheegay, waxaa leedahay walaalo inaan nabad iyo nolol iyo farxad iyo raaxad dareeno, iyo isqaqabsiyo buuqiga furtaag inaan dareeno, kala dooro. haddii u soo baxda inuu nabad rabo, nabad waa tartiib, hadalkoo macaan, hadalkoo ducaa, hadalkoo ismaqala, hadalkoo kala dambeyn leh, hadalkoo ciise leh, hadalkoo la iscaawinaa. laakiin haddaa meeshaan tiraa dididididididi marka dab waxaa dhacaysa odagoon dan laga lahayn inay dhacdo. waa la kala durga, laba qofoo isku hadiyeyso, isku hadal macaano, is adeecdo unbaa nolosha macaankeeda aragta. runta haddaan sheegno, walaalihiina waa kuwaana insha allah. abaayada ha loo duceeyo, reerkeeda ilaahayna uu qaboojiyo. ani kolley waxaa aaminsanahay reerka haddii cayoma naas ku dhacdo ama il ku dhacdo wuu kululaadaa reerka, xataa risaqi ma noqonaya waasac. ilmaha buuqii qayla ma dhaafayan, haddii kale xanuunaadii waxbaaba imaanayabo. marka horaa loo yiri meelay ilo taalo indhasan maleh, sababtoo buuqaa badan, simxadaa badan, wadaadka tale baabuurka uu la ordaayo iyo dadka uu la murmaayo iyone wax fiican maaha. aniguba waa walwali lahaa, mana jeclaysteen asigoo saas u qaylinayo inaan aniga ku fiirsado. waayo imagine anigoo qaylina oo cido i dhahaynin maxaad la qaylini, maxaad isla ceebeynaysaa, wadankan wadan qurbo waaye, dhulaadan lahayn dareen ku joog waaye. haye maanta haddaa qof madaxa istartaan I don't care, gacan laysku qaado, kafaxdihii boliisa meesha imaana, jeelaa laysku dadaamina, I don't care. jeelka markaa gasho macaantiisa, cidladiisa, xanuunkiisa, walwalkiisa markaasaa soo taabanaya gidaarka. intaadan weligaa lagu xakameyn oodan jeel gelin ma ogaan kartid xanuunkiisa. marka gabadha ka walwalaysa soojkeeda inuu jeel ka galo waa qof ka baaraan dega berri maxay noqon doontaa nolosha. midda kale maba ka maarantidba wadaadkaaga hal habeen haddaba ilaahay diistay inuu meel kale kaa jira ma ka maarantid. laakiin sidaa annaka wax u fahamsanaya noola fahma, ilaahay baa wax oge. amuurta khayr allah ka dhigo, allah nooga dhigo dhammaanteen. dhulaadan lahaynaali waa dareenku joog, waxaana laga wadaa ajnabiyaad la macaamilaysaa. ajnabiga marka hore waa iska kaasanife, dhulkiisa kula rabin. marka adigoo gacan kuga bado haddana haddaa dadka sii laclaacdo waa dhibaato. midda kale gabadha waxay kale ka cabanaysaa safetyga baabuur wadowga, sbiidka, meel qalada la dhigaa baabuurta. waxay tiri taraaga iyo looriyada iyo waxay tiri ku hoosahana inuu wuxuu rabaa ma arki kariyo, dabeecada wuxuu ka dhigtay tiri inuu ku garab rooro dhaafo. mararka qaar laba baabuura isku kaa qaban karta, waad ogtiin shilal halisa oo lagama soo noqdaana ka dhaco. baabuurka markaan kula jiray tiri ilaahow inta ciyaala haddaan wadano iyo labadeena haddaanay tiri u kala aabiyeelima jaf jaf jaf. waxaan take over la leeyahay tiri baabuurka kale laga qaadanayo oo aad u jeceliyay tiri. baabuur yaroo tartiib u socdana maba arki kari tiri, mirqa lagu leeyahay. jawaabaha oo bixinaya tiri qofka ku dhex jira gaariga kale hadduu dareemay tiri malaha waa loo soo dega lahaa. wadadiinu asiga leeyahay camal caloosha ay xanuunto.
صباح بنانك عادي ناس راعينا دودي ترميلا إيقوضة كليجيس مركو بحنا ميل كلا إيقوضة عدي أقنا مله maamuwaani waa kugu nafisaa bulxoogaa iyo soo sheekee haye habriiray macaani waa lagula arkay dadka qaarkood faamiligooda saas u dhaqmo muranka buuqa qaylada iska qabsiga aniga ma aragtay meesha halkaa ba'tooro ka ah waa iska jirtaa habaryar qofkaan arkina allaha mootiyee wax fiican maaha marka qofkaaga uu saas u baqbaqleeya fakta hore lagugu bilaabaa sheekada waa iska wax fani fani eh cute gabadhan oo qayqaylina fan laakiin qofka markuu kugu balbalaarto oo adiga iska dhaafa dadweynaha kale xataa afka la galaa saanaa dhacayso marka ilaahay bari dabeecadduna waa isbedeshaa qofka markuu soo weynaado abaaba hadduu ninku noqdo mas-uuliyadda xataa qofka waxay siisaa buteero ya aniga xaaskaygaa taa ilmahayga waa gurigayga waa amin wax kale waa moogtaa qofka ilaahay baa mas-uul ka dhigta marka mas-uuliyadda yareeda xoogaaya la atooreyna marka adiga u dhimre dhinaca fanfanka iyo fanifaniga iyo farxaddana ka fiiri waayo adigu aad u kululaatid reerkii hirigirigu galaa sax haye walaalahan u dayay sheekada inta kale komanka haddaa soo gashiin aragaane waa isla joognaa haddii kale habriiray duceyso ilaahay bari bal tartiibtaada noqo ilmahana ka bilow ilmuhu markaad gacanta ku dhigto isfahanka hooyada ilmaha ilaahay qabow kaaga dhigo wadaadka dhoonwore wadaadka hooy tartiiba u xalina asiga ma fahanti marka qaarkood hadduu ku dhaw soo bax waa bixin abu waa baqa maxaa ka baqaya ee dariiqa baaburka saa uwadi ma arkino guriga iska jooga adi hor soo danayso ka farxi ka qoslisii maya tartiiba u wada promise balan ma tahay haa tartiib ma wadeeha haya ugu heya ma rabi adoo dad la qaylina aan ku arko hadhow marka uu tartiib wado waa mahadsan tahay dheh walaalo waa mahadsan tahay maxaa dhac maanta baabuurka tartiiba u wade dariiqa kuma soo qaylin dukaanka ma isku soo diririn ya anagoo nabadaa baxna anagoo nabadaa soo noqona thank you maxaa kaa gala adi thank you dheh laba jooraba xaqo u leeyahay midada kale hiq baabuurtii lagu sihanayna uu kaa reebay marka khayr allah ku siiyo khayr allah na sii dhammaan saaxiibay waa isla soo wada aragna hawshaane waana noo socotaa weli hayehe insha allah walaalahana waa odahay adigana tartiibtaada noqo waxaad oo stress weyn lala dareemana meesha ma yaalaan waa iska howlaha yaryarka xaafadda ilaahay idinkiisa tartiib waxale caafimaad saaxiibada qaaligayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu